ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo haatan ah kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta waxa ay xariga ka jireen xarumo dhowr ah oo lagu dhisay isxilqaan. xarumaha xariga laga jiray waxaa kamid ah wasaarado, wadooyin iyo xarumo kale oo danta guud ah. gudoomiyaha qabanqaabada toddobaadka xurriyadda ahna wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dhowr mashaariic guud ahaan dalka idin laga fuliyay iyadoo haatan ay ku soo aaday xarig jarkooda maalmaha qiimaha badan ee xurriyadda dalka. ku dhawaad 150 mashruuc oo cusub ayaa dalka meelihiisa kala duwan laga hirgeliyay bilooyinkii ugu dambeeyay isxilqaan lagu qabtay. sida la sheegay gobolka Banaadir meeqa mashruuc waa gobolka Banaadir konton iyo saddex mashruuc oo kaliya waa gobolka Banaadir. marka dawladdan waxay dalkeeda ku dhisaysaa oo go'aankeedu yahay sidii ra'iisul wasaare ku-xigeenku hadda dhow sheegay yoolkayaga iyo halku-dhegaygu waxa weeye dalkeenna haddaynu duminay haddana gacmaheenna aan ku dhisno. marka waa hambalyo ayaan leeyahay degmada Yaaqshiid iyo dalka oo dhan inay ku faanaan dawladooda iyo siday u shaqaynayso iyo sida dalka quruxdiisa iyo karaamadiisa loo soo celinayo. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish oo goobjoog ka ahaa xarig jarka xarumahan danta guud ayaa shacabka gobolka Banaadir ugu mahadceliyay sida hagarlaaneed ay ugu qayb qaateen dhismaha xarumahaasi. waxaana tilmaamay gudoomiyaha in loo baahan yahay shacabka in ay si wanaagsan u daryeelaan xarumahan maadaama danta guud loogu adeego. kelmadda aan rabo reer Yaaqshiid inaan idhaahdo waxay tahay degmadiinii waatan way dhisan tahay. shalay degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay tani waxaa dumiyey cadowgu goobaha dadka loogu adeego iyo mas'uuliyiinta dadka indhaha u ah ayuu mar walba beegsadaa. degmadiinnii mar kale waa soo noolaatay iyadoo intii ka qurux badan oo ka weyn. ha u oggolaanina in cadow mar kale uu sidoo doono ka yeelo. haddii aad soo jeediin oo ay idinka go'an tahay inaad iska xuraysaan cadowga laba heli maayo maba la arkaya baasay. sidaa darteed soo jeeda maalin soo jeeda habeen magaaladiinna iyo maamulkiinna xarumahooda gacantiinna ku haysta. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa bogaadiyay xarig jarka xarumahani loogu adeego bulshada waxaana tilmaamay in la gaaray horumar ballaaran sanadihii dambe. toddobaadka xurriyaddu waxa uu inoogu suntanaa 60 guurada maadaama aan 60 jirsanay inaynu ku xusno wax qabsi inaynu inagu isku tashanno gacmaheenna wax ku qabsanno dib u dhisno dalkeenna gacmaheenna ku dhisno barnaamijka isxilqaan oo aynu ka wada shaqaynaynay aynu ku meel marino soo celinta bilicdii magaalada soo celinta bilicdii qaranka soo celinta goobihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dawladda oo ay maanta ka mid tahay degmada Yaaqshiid oo gacmihiina ku dhisateen isxilqaan aynu ku dhisannay. waxaan leeyahay gobolka Banaadir iyo degmadaba hambalyo aad baan idinku hambalyeynaya. mashaariicda xariga laga jiray oo ah goobaha loogu adeego danta dadweynaha ayaa horay in isxilqaan lagu dhiso ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo haatan dhammaan ay noqdeen kuwa guuleysta.